السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايدين السلام ميل والبوات شوكتان وعبد محمود قلاع يا برنامج كيدين كي ما انشري معهد كنبدا يا بلشده ولا البرنامج كمان انت waxaan isweydiinaynaa markaad eegto sidoo u dhaqmayo madaxweyne Xasan Sheekh oo ma garanaysaa ku astaysan ama niyadiisu tahay inuu xoog isticmaalo oo wadanka xoog ku qabto. anigu waxaan isweydiiyay Xasan Sheekh ma wuxuu hayaa wadadii General Aideed uu qaaday oo Soomaalina ku baabi'iyay isna uu ku baaba'ay. barnaamijka arrintaasaan ku eegayaa waxaan idinka codsanaynaa inaad taageertaan oo like iyo subscription ku samaystaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. madaxweyne Xasan Sheekh ilaa maalintii uu ku soo noqday awoodda runtii wuxuu noqday taladiid nintiisu u cadday oo wuxuu rabo iska sameeyo. dastuurkii buu bedelay isagoon dad kala tashan, gobolladii buu dagaal ku qaaday meel walba, gobolladii is haystay buu kala jajabiyay oo ku abuuray wax jabhada u eg sidii uu gada ka sameeyay oo kale. dagaaladii ma garanaysaa halka Kismaayo meelaha uu diyaaradaha ugu daldalay ciidamada tan hadda ka socota ma garanaysaa Baydhabo iyo meelahaas Baayo Bakool. Puntland waxa uu maaragtay ku sameeyay inuu ku abuuro waxyaabo caynkaas oo kala wax jabhad u eg oo caynkaas oo kala yani waxyaabahaas waxaad moodaa inay yihiin waxyaabo ina kala dhantaalaya ana ahayn wax runtii taageeraya meesha aynu u soconay oo inaynu dib u heshiisiin helno oo wadankeena dhisno oo is ixtiraamno oo isu dul qaadano oo talada wadaagno inaysan ahayn. shalay wuxuu tagayaa magaalada la yiraahdo Gaalkacyo wuxuu yiri magaaladan inay qaybsanaato maaha waa runtiis laakiin maxay u qaybsantaa maxaa keenay inay qaybsanaato waxa keenay inay qaybsanaato wax weeye waa sidaynu u dhaqmayno isma aaminsanin maxayna isu aaminsaneyn waa in la isweydiiyo waxayna isu aaminsanayn cadaalad darra laga baqayaa qofka awoodda haysta inuu awoodda dawladda isaga takrifalo wuxuu rabo ku sameeyo hantida dawladda khayraadka dawladda ciidamada dawladda hubka dawladda inuu dadka kala ku dhibaateeyo inuu ma garanaysaa ciduu rabo ku naas nuujiyo yani cadaalad darradaas laga baqayaa wax kale ma aha. Soomaali diinna iskuma hayso, dhaqan iskuma hayso, af iskuma hayso, midab iskuma hayso, wax kale iskuma hayso. marka madaxweyne Xasan Sheekh waxay ahayd inuu yiraahdo warbal cadaalad aan isku dayo iyo kalsooni intaan sameyn kara inaan sameeyo. bal anigu waxaan doonayo Soomaaliya midaysan oo unified state hadda waqtigan kuma haboona hadda waqtigan bal anigu dadka aan hubka ka ururiyo magaalooyinka aan isu furo sidooda ha ahaadeen siyaasaddan hadhow bay isbedeli kartaa. dadka iga dambeeya iyo kuwa ka dambeeya iyo kuwa ka dambeeya mid boqol wax hagaajiso hadday rabtana sidooda ha ku joogaan. laakiin bal marka hore wadanka aan isu furo oo nabadeeyo oo aan daaweeyo dadka oo dad kalsoonida soo noqoto oo beerahooda ha fasheen oo xoolahooda ha dhaqdeen oo ganacsigu ha isu socdo oo magaalo walba ha furnaato. Gaalkacyo waa qaybsantahay muxuu Hiiraan u qaybsantahay oo inaynu isweydiino maxay Shabeellada hoose u qaybsantahay meel al-shabaab u haysataa meel ma garanaysaa dawladda u haysataa maxay u qaybsantahay meesha la yiraahdo magaceeda Baayo Bakool halka maxay gada u qaybsantahay. dhibaatadu Gaalkacyo kuma koobna waa mid guud oo Soomaaliya oo dhan haysata. at least Gaalkacyo wuxuun baa ka jira arrangement oo dadka halka jooga ay yiraahdeen waraan bal sida u wada noolaano xabadna isuma haystaan dhibna isuma haystaan dhibaatooyin waa isu geysteen laakiin waa garteen inaysan dan ugu jirin wax yar walba aynu sida ku noolaano mana xuma haddii dadku hadda wuxuun ka fikiraan yiraahdaan see nabad ugu noolaana wax xun maaha. laakiin su'aasha uu Gaalkacyo keenay Xasan waxa weeye mid muuqato weeye wadanka oo dhan ka jirta la rabayna inuu xal u helo laakiin xal uma helin dab ku sii shiday wana ayaan daro. waxa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan muxuu Xasan saa ugu dhaqmayaa. Xasan la taliyaal khariman ayuu leeyahay dad la taliya oo ninkan la yiraahdo Professor Xasan Sheekh oo kale Xasan Sheekh Ali nin la yiraahdo iyo rag caynkaas waxay yiraahdeen xoog isticmaal adduunka xoog waa in la isticmaalo. waxay soo qaateen political realism wax la yiraahdo theory Mareykan ka jira laakiin theory Mareykan laga keenay Soomaaliya ma daaweynaysa. theorygaas wuxuu ku saabsan yahay dawladaha
oo ay leeyihiin dawladaha cid ka sareyso ma jirto isu keenayso isu maslaxaysa ma jirto marka dawlad walba waa inay xoog isticmaasho goormaana fikradahan u yimaadeen markii Mareykanku cirka marayeen China hooseysay maxaan ku yiraahdaa Soviyetkii burburay markii qorayeen the end of history taariikhda waa dhamaatay inaga unbaa ma garanaya iyo systemkeena iyo waxeena unbaa wax kale oo shaqeynaya ma jiraan inaga xaq ku taagan laakiin Mareykanku fikrado badan oo ay keeneen ayaa khaldamay mid dhaqaalaha ku saabsan baa jirtay oo niman Chicago Boys la oran jiray ay keeneen oo adduunka oo dhan ay yiraahdeen wax walba liberal ha laga dhigo dawladdu faraha kala baxdo wax walba oo shaqeyn waayaan political realism kan marka boqolaal baa jira fikradooda caynkaas oo kale oo xagga siyaasadda ku saabsan iyo sida dawladuhu u dhaqmayaan taa kaliya maaha laakiin tii ugu xumayd oo xoogga ku saabsaneed bay soo qaateen laakiin xoog Soomaaliya ma ka shaqeynaya kama shaqeyn karo waa wadan qaybsan oo wan qabyaaladaysan waa wadan hub loo wada haysto waa wadan u baahan in tartiib loo turxaan bixiyo tilaababa mar la qaado laakiin ay diidna ma garantaas xasanna ma garan labadooduba waa iska ordeen waxay rabaan xoob iyo hub inay isticmaalaan ay diidna waxay ku hogaamisay waad ogeydeen in 200 oo ma garanaysa warlords ay ka soo baxaan magaalada Muqdisho oo hell ay noqoto la seexan kari waayo dad ku xasili kari waayaan Soomaaliis disho maalin walba lees cayrsado dadka meelaha ma garanaysa wabiyaashi iyo jireer weyn iyo wax adoonsi u dhow inay ka dhaceen meelahaas waad ogtiin bay dhabo 20 kun oo qof inay baahi ugu dhimatay haddaan Mareykan ka soo gaarina maybe magaaladaas wax ku nool oo dhan ay baabi lahayn waad ogtiin marka khaladaadkii caynkaas ah oo aynu sameynay miyaynu dib ugu noqonaynaa maanta ma isa sii baabi'inayna ma se ku kala guuleysanayna oo ma u maleynayna xasan intuu xoog isticmaalo Soomaali inuu xoog isugu keeno isuguma keeni karo awoodeedii ma haysto dhaqaalaheedii ma haysto taageeradeedii ma haysto waxba ma haysto marka xasan dadka la talinaya oo ma garanaysa political realism iyo caynka iyo xoog isticmaal leh waa dad khaldan weeye marka horeba theory-gaasu wuxuu ku saabsan yahay dawlad iyo dawlad laakiin wadan dhexdiis kuma saabsana dawladaha dadka nimanka Mareykanka waxa keenay dawladda Mareykanka leeyihiin waa in xoog jiro xoog isticmaal waana isku day hadda Donald Trump dadka riixaya waxaasay wadaan maxay nimankaas kula taliyeen yaan waxba ku xayirin hay-adahan UN-ta iyo magaciisi iyo kan iyo qaramada midoobay yaan waxba ku xayirin cidna uma baahnin soco laakiin ma shaqeynayso laakiin Mareykanku maxay inooga duwan yihiin fikrado waa keenaan dad fara badan baa iyaga fikiraya oo wax qoraya oo analyze gareynaya oo wixii halaabay maxay u halaabeen oo marka fikradahoodu meesha ma taagnaadaan marba kuwa kale cusub bay keenayaan sababtu wixii ay dib ugu dhacaan iyagu wax rabaan inay ka baxaan waxayna dib baynu ugu dhacnaa taa ma shaqeynayso aynu ka soconno laakiin inagu waxaynu dib ugu dhacnay ma oran karo war dib baynu ugu dhacno aynu ka baxno qabyaaladda iyo isdilka iyo isdiidka iyo ma garanaysaa dagaalka dhibaatada joogtada kuma fikir karo inaynu ka baxno waxayna ahayd xasan sheekh inuu hormuud ka noqdo inuu wadanka waxa ka saaro oo yiraahdo yani aniga dhaxalkaygu ha noqdo ama waxa la igu xusuustaa ha noqdeen ninkii Soomaaliya nabadeeyo isu furfuray taasay sharaftiisu ku jirtay laakiin wuxuu hadda qarka u saaran yahay inuu mar kale dib dagaal sokeeyo inoogu celiyo maanta waxaan arkay kuwa meelahaas qoraya daaroodkii baa ku shiraya maxaan ku yiraahdaa Nairobi oo dib waa mashaakil hor leh maxaa halka ina geeyay birna waxaad maqlaysaa hawiya halka ku shiraya hubka la isu urursanaya war maxaa halka dib inoogu celiyay miyayna waxa ka soo daarin oo ku soo wareerin miyayna at least wuxuu heshiis ka gaarin oo oran war ma kala maaranay aynu noolaano wada noolaano maxaa halka dib inoogu celiyay waa talaxumada madaxweyne xasan sheekh la siinayo ayaa taas xoog hal waa keenaa laakiin xoog hadduu waa inuu qofku og yahay inuu xoog wax ku qaban karo dawlado badan baa xoog lagu mideeyay laakiin ninka xoog wax ku qabtaa waa inuu dadka si cadaalad ugu shaqeeyo Uganda nimankii maxaan ku yiraahdaa Uganda yaan oranay Rwanda nimankii la oran jiray Rwanda Patriotic Front xoog bay ku qabteen laakiin ma cayrsan dadkii tutsiga ma cayrsan ma baabi'in dagaalku ma qasideen isu gallo kale inagu laakiin waxay soo qabteen nimankii dambiilayaasha ah laakiin inagu markaynu siyaad barro ka saaray siyaad barro dadkii la shaqeynayay oo ugu waaweynaa mayna wada qaban Xuseen Kulmiye Maxamed Sheekh يعني وحلي أو كوان وويل شيء ده هالكان كان ساس ما هسي الدولة وش قيسو نظام بدل دجالي سي
cid kastoo nidaamkaas ku jirtay waxa weeye isku meel waa inay taagnaadaan maxkamadgee at least xataa waxba waa lagu waayay dheh laakiin waxba maynaa qaban Rwanda marka raggii ugu waaweynaa dad badan oo hore la soo ururiyo fara badan laakiin wala iska sii daayay dhaqan celin baa loo sameeyay orda beeraha falaa la yiri dadkii topka ahaa oo la yaqaanay oo ama raadiyaha ka hadlayay ama dagaalada hogaaminayay ayaa maxkamad la geeyay inagu xataa intaana maynaa samayn umana diyaarsanin inaynu samayno way qabyaalada inaga weyn ma rabno inaynu wax dhisno inaynu wadan dhisno ma rabno waana sababta aynu u dhaqaaqi lahayn u ragaadnay waa sababtaas weeye marka anigu waxaan u maleynayaa xasan sheekh inuu wadada caydud ku socdo oo Soomaalina baabi'in doono isaguna uu runtiisa ku dhiman doono sharaf darro uu ku dhiman doono ayaan u maleynayaa laakiin ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay Soomaali ka badbaadiyo Abdi Maxamuud Qalla barnaamijkii idin ka imaan jiray Machadka Nabadda iyo Bulshada sida ay nabad geliyo walaalayaal